rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nabigu u yimiday markaabuu nabigu ku yidhi maxaad hadal haysan bal ii sheega markaasay quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaayo maxamed agtaada lagu hadal qaado waa inaad ku sallidaa laana salliga nabigu calayhi salaatu wasalaam waa min acdami alqurbaati ila allahi caza wajal acmaasha ilaahay loogu dhowaado waxyaabaha ugu fadli badan ee addoonku ilaahay ugu dhowaada ayay ka mid tahay man sallaa calaya salaatan waaxida salla allahu calayhi biha 10 maraat ninka aniga mar keliya igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariis iyo darajad ii weydiiya isagana ilaahay 10 jeer buu u naxariistaa buu rasuulku yidhi cunaanu ha ciyaaraan ha iska tuntaana iska dhaafaa nebiga lagu yidhi gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi mataacun qaliil in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaan in yar bay haystaan uma ma'waahum jahannam halkay ku hooyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah ninka aniga mar igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariis iyo darajad markaa buu nebigu yidhi qofka caydhu waa kee waa banka qiyaamuu la iman doonaa salaad iyo soon iyo zake iyo xaj buu la iman doonaa laakiin dad fara badan baa halkaa hor joogsan doona dadkaasi isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkani waa i dilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygii buu iga dhacay mid wuxuu u leeyahay dhiig buu iga daadiyey markaasaa la odhanayaa waxalli waxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaadoo ayaka siiyo janno ku geliya markaa baa la odhanayaa weliba dad kalaa hadhay oo addoonka maaragtaane ku sheeganaya xaq markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaadoo isaga madaxa u saara dadna ilaahay nagu qiimayn maayo qabiil ilaahay nagu qiimayn maayo lacag ilaahay maaddo nagu qiimayn maayo ilaahay waxau nagu qiimaynayaa waa inna akramakum cinda allaahi atqaakum meeshaa doonta joog dabaqadaa doonta ku adaanka aad maqlaysaan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'adinku erayada uu leeyahay ka daba dhahada aadaanku markuu dhammaadana aniga igu salliya buu nebigu yidhi laba nin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa naarta ka dhex cabaaday ilaahay baa yidhi ka soo saaray malaa'igtaydiiye soo saara bannaanka soo joojiya waa la soo saaray maxaana helay buu ilaahay ku yidhi miyaanna dulmiyey maynama dulmin maxaad la cabaadaysaa yaa rabbi naarta kuweylkaygii baan u adkaysan weyne ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi warkaa joojiya ordoo naarta kullaanba ku daata mid baa orday midna uu istaagay kii ordayey buu ilaahay ku yidhi joogso xaggeed ku ordaysaa markaasuu yidhi yaa rabbi 2 jeer ku wada caasin maayo anugu adduunyadii baan kugu caasiyeyoo maanta ku caasin maaya naarta calaa madaxa baan ugu dhacaya kii istaagaa la odhanaya maxaad isku taagtaa amarka la diidaysaa wuxuu leeyahay haddaan 10 jeer ku caasiyana raxmaddaada ka quusani maayo labadiinnuba laamoo jannada galu ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala haadaa maalik xadiid kale nebigeennu waa kii lahaa nebi kasti ilaahay adduunyada dusheeda duca la aqbalaa ilaahay siiyey nebi walba ducadiisii adduunyadu ku soo isticmaalay aniguna ducadaydii maalinka qiyaamahan khalqiga u dhigtaan ku anfici doonaa buu rasuulku yidhi ku salliya nebigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam maalinkaasuu nebi maxamed ina xasuusanayaa inaguna maanta sunnihiisi nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil baa u yimid oo ku yidhi rabbigaabaa ku soo salaamayey salaam baa rabbi kaaga wadaa waxaana lagu amrayaa inaad guursatid ramlata binta abi sufyaan gabadha ninkeedii ku weyday ardulxabasha ee ilaahay dartii ardulxabasha iyadoo muhaajirada u joogta ee keligeedna aqalka yaree cadhiishka dhex seexanaysa gabadhaasaa zawjad inaad ku noqoto lagu amree halkaa ka guurso ka mehersaa lagu yidhi deedna markaa buu nebigu soo diray markaa ergo boqorkii najaashi baa nebiga meherka ka bixiyey dadkii iyada la socdayna waxay ka dhex dooratay khaalid ibni saciid ay ku tidhi adigaa iga noqonaya bay ku tidhi maaragtaane weligayga adigaa iga noqonayo adaa dad igu dhow daadna markaa bay noqotay ummulmu'miniin bay noqotay ummulmu'miniin radia allaahu canha ramlata binta abi sufyaan gabadh qiimo badan bay noqotay madiine ayaa nebiga loogu keenay calayhi salaatu wasalaam daadna madiine markay timiday ayuu nebigu dejiyey aabbaheed abaa sufyaan oo markaa gaala oo weli aanan islaamin ayaa magaalada madiine u yimid inuu nebiga la galo sulx iyo heshiis markay nebiga wada hadleen ee ay sulxigii arrimihii laga wada hadlay ayuu is yidhi bal inantaadii ramla sii maroo sii buuqo
daadna markaabuu aqalkeediibuu galay gogashii nebigeennu ku jiifsanaya markuu yidhi ha ku fadhiisatid gogashii bay ka hor qaaday baa la yidhi markaabuu sidaa u eego wuxuu ku yidhi aabbo ma firaashkaa aniga ii qalmin mise anaa firaashka u qalmin buu ku yidhi maxaad iga hoos qaaday markaabay ku tidhi maya aabba firaashkan waa firaashkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku jiifsanayey uma qalantid inaad adigu aad ku fadhiisatid bay ku tidhi waayo adigu nin mushrika oo nijaasa ayaa tahay firaashka nebi maxamedna waa firaash daahira bay ku tidhi iimaanku waa cajiib waa aabbaheedii dhalay islaamnimada markay ay timaaddo diinta islaamku waa inaad garataa ayaa la xidhiidhinayn ayaa wax la siinayn ayaa la jeclaan ayaase la jeclaanayn ayaa xidhiidhka loo jari ayaa xidhiidhka loo dayn waxaasoo dhan diinta islaamkaa ku amraysa alwalaa walbaraa bay culimmadu yidhahdaan alwalaa walbaraa haddaad jeceshihiin ama aad rabtaan inay ilaahay nebiguna jeclaadaan haddii aad sheekaynaysaan buu nebigu run ku sheekeeya haddaad ballan qaaddaanna ballanka buuxiya haddii ammaanan laynii dhiibtana ammaanadaasi intay dooniba ha noqotee buu nebigu yidhi cidda ammaanada inii dhiibatay ammaanada u ilaaliya nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horraanba wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimadday diinta islaamku hoos kuumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaadday kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeegii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaa buu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysaan balii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan 20 sana nebigu markuu dhex joogay dad nuuceeye noqdeen bay kula tahay arxamu ummatii biummatii abaabakar buu nebigu yidhi ummaddayda ninka ugu naxariista badan waa abubakar nebigeennu waa kii lahaa nebi kasti ilaahay adduunyada dusheeda duca la aqbalaa ilaahay siiyey nebi walba ducadiisii adduunyadu ku soo isticmaalay aniguna ducadaydii maalinka qiyaamahan khalqiga u dhigtaan ku anfici doonaa buu rasuulku yidhi ku salliya nebigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam maalinkaasuu nebi maxamed ina xasuusanayaa inaguna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa iyo ku dayashadiisa aan u arkayna dib u socodnimo inaan dib u noqonayna haddaad u arkaysid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa iyo ku dayashadiisa aan u arkayna dib u socodnimo inaan dib u noqonayna haddaad u arkaysid ilaahu ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu waalxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey in xabashiga nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisii buu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada nebigu kor yimiday caleen qoyan buu qaaduu ku kala taagay labadaa qabri cidda ku jirta waa ku cadaaban yihiin camal weynood sidaa u sii weyne laguma cadaabaye kana waxaa lagu cadaabayaa marka tahaaradda aad iskuma tahirayn oo bawliga kaadida iskama hagaajin jirin kana wuxuu ahaa diradiraalo ah qofka dadka hadalka u kala qaada buu ahaa ee dadka isku dira labadaa camal baa lagu kala cadaabayaa buu rasuulku yidhi way tidhi iyo uu yidhi nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gabadh heblaayo laydhaabaa dariskayga salaad badan way tukataa soonkayguna waa badan yahay laakiin jaarkayga carabka ku dhibtaa nebi allow bal ka warran markaa buu nebigu yidhi taasi naar bay ku jirtaa buu yidhi
ku kala yidhi anigana heblaaya dariskayga salaadeeduna ma badno shanta waqti bay ilaalisaa soonkeeguna ma badno oo bisha Ramadaan bay soontaa laakiin jaarkayga ka nabad galay buu yidhi ee ka waran nabeelow markaa buu nabigu taa jannay ku jirtaa buu rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah ceelkii bi'ru Rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninka loo ballan qaado iska diiday aniga ma lay ballan qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaad ilaahay uu siiyey mataqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqadda iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa tasaddexaadna baa la yidhi hee annashaatu fi lcibaada nabigeennii muxamed aha calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan raggii buu nabigu la hadlayay sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi ka idinku fiican raggii haddaad tihiin idinku khayr badan waa ninka reerkiisa ugu khayr badan aniguna waxaan ahay haddaan nebi maxamed ahay ninka ehelkiisa ugu khayr badan waa aniga buu nabigu uri sal alla alay wasalam asxaabtaada aada la nooshahay eed la socoto ee aada la fadhiisato eed sheeko wadaagga la leedahay dadka wanaagsan ka dhigo dadka khayrka u ordee ku dadaala ka dhigo saalixiinta ilaahay jecel yahay la saaxiib dadka xunxun ama dadka gaabiyey ama dadka leexday kuwaasi suxbadooda ka fogow لأن بني آدم كسيد القرآن كوينوشة ربينوشة تبارك وتعالى رسول كيسون عدي بني آدم كوا إسا سامين يا وحقوا يهيبوا صاحبك كاردق يا أدوغنا وحبات كسين أساقنا وحبوك كسين واد إسا سامين إسان القرآن الكريم كبا إلهي نوغوشة تبارك وتعالى نلمي أو صاحبك اللميي أو قوم مونيا ويوم يعض الظالم على يديه لبدك عمود بقنينيا markaasuu nabi maxamed markii la weydiiyay la yiri amalka ugu badan ee dadku jannada ku galaan noo sheeg wuxuu yiri taqwa allahi wa husnul khuluq ba nabigu yiri amalka ugu badan ee dadku qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekeyn jiray qays iyo leela dhaxmartay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leela ay u waashay daraadeed markaasuu darbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha kamida waxa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar darbi buu dhudhunkanaya markaas lagu yiri war qaysow maanta waalidaadi ma waxay ku geysay darbiga inaad dhunkatid markaasuu uqabbilu dal jidaari wa dal jidaar wama fi wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa layla ayaa degan oo jacaylkii laylaan u dhunkanayaa buu maalin kalaa la arkay isagoo ay haystood u dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii layla ay ku jirto ka soo baxay buu ka soo baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu ilaahay ku dhaartay wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartay iimaan male wallaahi baa ku dhaartay iimaan male oo ilaahay ma rumayn wallaahi baa ku dhaartay iimaan male yaa rasuul allah waa ayabaa lagu yidhi qofkaasi waa qofka jaarkiisu sharkiisa ay ka nabadgeli waayaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baan ka maqlay isaga oo leh gabalku markuu dhaco iyo marka waagu uu baryo لك دعاء أخرستا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم waxaan ka maqlay buu ducada nabi maxamed oo yiri ninka galabtiina mar yiraahda subaxdiina mar yiraahda hadduu galab ducada yiri ilaa waagu ka baryaayo masiiba kuma dhacdo toobadkeeno isaga ina arsaaqaya hadana dadka ilaahay way caasinayaan maanta waxaan haysanay isaga nasayulahay nafta raali gali oo naftu waxay doonaysaa u yeel waxaynan xayawaanku aynan sameeynin ay maanta bini'aadamku caalamka ku sameeyeen ilaahayna dulqaad weynaa إلهينا وإيجا إن بطش ربك لشديد ما لنبو إلهي قبن دونا
hadduu ilaahay ku qabtana ilaahay ku sii deyni maayo ogow. wuxuu yidhi nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasallam qofkii jeclaada la kulanka alleh ilaahayna wuxuu jeclaadaa la kulankiisa. allaha raxmaanka ah xadiidulqudsi wuxuu ku yidhi addoommahayga wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaanan ili arag dhegna aysan maqal qalbi basharna aanan ku soo dhicin. ducadii nabigeenna sal alla alay wasalam ugu badnayd uu ku ducaysanayey maxay ahayd? yaa muqallib alquluub habbit qalbi calaa diinik. quluubtuna waxay ku jirtaa buu nebigu yidhi nimadaada ilaahay ku xidhnow. cabsida ilaahay baa meel walba galaysa ogow. reer wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa. arsaaqad barakada cabsida ilaahay baa kuu haysa. oqoon wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa. sharaf iyo cizi cabsida ilaahay baa kuu haysa. hadday cabsida ilaahay meesha ayna ku jirin, maalinta lagu saaro wuxuu ku ilowsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa. yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun, maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo, kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo, kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso. wadammatu lqabri tusi leylata alcursi, mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale, qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa, deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa. haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi alayhi salaam. nin boqor ayaa jiri jiray, qasri buu dhistay. qasri muddo dhan baa qasrigaa la dhisaayey. maalintii qasrigii faraha looga qaaday ayaa la yidhi waan dhammayna kaale naga guddoon. jidka uu sii marayey ee qasrigiisa loo marayey aqal yaroo cariishoo buula ayaa ka dhisan, cariish baa ka dhisan. boqorkii baa yidhi aqalkan ayaa leh, waxaa la islaam duqa ayaa leh, yaslaan duqa ayaa leh. aqalkan aqalkaygu iga bahdile cagaf mariyo qaada buur gebigiisa buurka tuuray. islaantii duqdahayd ma joogto, way timidday, galabtii bay timidday. meeshii waxay arkeen waddaa laga dhigay meeshii. markaasay xaggan ka wareegtay, way weyday aqalkeedii. xagganay u wareegtay, way weyday. wax xataa qorye iyo wax ka hadhay way weyday. askar baa u timidoo waxaa lagu yidhi ka dhaqaaq meesha eeyaa. markaabay tidhi maanigaa qaldan mise dhulkii baa la rogay? maya, dhulka lama rogino, dhulku waa sax weeyaane xaa kaa maqan sheega baa lagu yidhi. markaabay tidhi aqal cariishoo buula ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday, maad aragteen? waxaa la yidhi waad war laadahay, saaka waa lagu waayey. boqorkii baa yimid oo yidhi aqalkaygiibu fool xumeeye qaada oo maaragtaane kala tuura. deedna waa la qaadoo buurtaasaa laga tuuray aqalkaagii. oo islaan miskiinada oo da'weyn gacmaha cirka u taagto waxay tidhi yaa rab waadigii yidhi ma innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. anaa dulmiga iska xarrimay baa ilaahay yidhi. ilaaha khaaliqe ee rasaaqa ayaa ku idhi addoommahayga ma dulminayo, dulmigaa dhexdiinana xaaraan baa ka yeelee ha isku xadgudbina baa ilaahay yidhi. yaa rabbi anigu haddaan maqnaa adu miyaanad joogin markii lay dulminaayey, maxaad addoonka iga qaban weyday bay ku tiri. duca badan may ducaynin, erayadaasay ku ducaysatay, laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo. waxay tidhi yaa rabbi adigu miyaanad joogin bay ku tiri markii xoolahayga sidaa loo galaayey. aqalkayga marka buurta laga tuuraayey adu miyaanad joogin? sawdigii yidhi anigaa dulmiga iska xarrimay, misee lay dulma adu maanad joogin? ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil, waa muntaqim, uu u argudaa addoommihiisa ilaahay. dabayl intuu ilaahay keenay qasrigii intaa oo sana la dhisaayey, dabayl baa ilaahay waxa ugu badnaa buu nebigu yidhi, haweenka ugu badnaa. saxaabiyaadku nebiga way weydiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen oo yaa rasuul allah maxay ku dhacday inay haweenku naarta ugu bataan? waa laba shay buu nebigu sheegay. xaqa raggoogu ay ku leeyihiinna way daboolaan. oo ninkii 30 sano 40 sano ixsaan u samaynayey ee tacabkiisii oo dhan iyo dhaqaalihiisii ayadiyo ilmahayga ku bixiyey, hal maalin hadday isqabtaan waxay odhanaysaa khayru ninkaasi leeyahay numa baarag biga kaxeeya. caydana way badiyaan buu nebigu yidhi, cayda xanta carabka ilaaliya. in saxaabada ka mid a nebiga u yimid oo ka yidhi gabadh heblaaye la yidhaah baa dariskayga, way salaad badan tahay, way soom badan tahay, laakiin jaarkayga carabkay ku dhibtay. abu dardaa maskiidka isagoo fadhiyaan inuu yimid oo yidhi waranqalkaagii dabbaa in yar u jire kacoo ka gaadh ma gubanay buu ka yidhi. haddana ku kala u yimid abu dardaa ma tihid? aqalkaagii dabbaa in yar u jire kacoo ka gaadh ma gubanayo.
ku saddexaad baa u yimiday sidii asilay kii afraad baa u yimid oo yidhi dabkii markuu aqalkaaga u dhowaaday iska baktiyey abu dardaa wuxuu ugu jawaabay ma taqaanaa qad calimtu ana allaha lam yakun liyafcala dalika buu yidhi waan ogaa inuu ilaahay aqalkayga uu dabka iga qabadsiinay dabkaasi aqalkayga inuusan gaadhayn baan ogaa buu yidhi anigu markaasay yidhahdeen labadaadan hadal eed ku kala hadlayso keebaa la yaab badan bay ku yidhahdeen ma kii aad dadka ku lahayd aqalkaygu ma gubanaya iska noqda mise ka dambe aad leedahay waan ogaa ilaahay aqalkayga inuusan dabka iga qaban